Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada channelkeena Hogan 24 Media. Waxaan maanta barnaamijkeenii kugu soo gudbinaynaa nin Israa'iili ah oo isku dhex qariyay muslimiinta iyo booqanaysay magaalada barakeysan ee Makka. Wariyaha u dhashay Israa'iil ayaa ku dhex dhootay magaalada barakeysan ee Makka xilli uu ku guda jiray safar uu ku tagay dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya, taasoo dhalisay muran ka dhex abuurmay baraha bulshada ee internetka. Saxafiga oo u shaqeeya TV-ga Channel 13 ee Israa'iil laguna magacaabo Gil Tamary ayaa daawacay muuqaal iskaga duubay isagoo gaari ku dhex maraya magaalada Makka. Inkastoo uu sharcigu mamnuucayo galitaanka dadka aan muslimka ahayn ee magaalada barakeysan ee Makka, wuxuu sidoo kale fuulay ama koray buurta Carafo oo ah goob xurmo leh oo muslimiinta isugu yimaadaan inta lagu guda jiro gudashada waajibaadka xajka. Safarka uu halkaas ku tagay uma muuqan mid uu fasax uga haysto mas'uuliyiinta dowladda Sacuudiga, waxaana warbixintiisa la daabacay kadib markii uu ku laabtay Israa'iil. Booqashada uu ninkan Israa'iiliga ku tagay magaalada barakeysan ee Makka iyo sawirada iyo muuqaalada uu isaga soo duubay halkaasi ayaa muran ka dhex dhalisay baraha bulshada. Sida ay qabto diinta Islaamka, dadka aan muslimka ahayn looma ogola inay galaan magaalada Makka. Tamary oo ka mid ah 3 wariye oo Israa'iil ah oo loo ogolaaday inay Sacuudiga galaan si ay u soo tabiyaan booqashada madaxweyne Biden ayaa raaligelin ka bixiyay galistiisa dhulka barakeysan, isagoo sheegay in ujeedadiisu ay ahayd inuu muujiyo muhiimadda Makka iyo quruxda Islaamka. Booqashadiisa ayaa sidoo kale dhalisay dhaleecayn dhanka baraha bulshada ah, iyadoo dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo dhaqdhaqaaqyo lagu caadiyeynayo xiriirka Israa'iil. Dowladda Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil ma lahan xiriir diblomaasiyadeed, laakiin xiriirka ayaa si tartiib ah u soo hagaagaya. Dhowr wariye oo Israa'iil ah ayaa galay boqortooyada iyadoo isticmaalaya baasaboor ajnabi ah intii lagu guda jiray booqashadii madaxweynaha Mareykanka ee Joe Biden. Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay inay hawadeeda u furi doonto dhammaan shirkadaha diyaaradaha oo ay ku jiraan duulimaadyada taga iyo kuwa ka imaanaya Israa'iil. Tallaabadaas oo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Yair Lapid uu ku tilmaamay tallaabadii ugu horeysay oo lagu caadiyeynayo xiriirka labada dal. Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Sacuudiga ayaa sheegay in wax kasta oo xiriirka ah uusan caadi noqon doonin ilaa ay Israa'iil xalinayso colaadda ay kula jirto Falastiiniyiinta. Israa'iil ayaa tan iyo sanadkii 2020 la daalaa-dhacayso ballaarinta xiriirkeeda diblomaasiyadeed ee dalalka Carabta, waxaana xiriirka ay la samaysatay Imaaraadka Carabta, Bahrain, Morocco oo uu garwadeen ka ahaa Mareykanka. Muuqaalka Tamary ee Makka ayaa si degdeg ah loogu faafiyey baraha bulshada, waxaana si kulul u cambaareeyay dadka dhaliila dowladda Sacuudiga, waxaana ay caro ka dhex abuurtay gudaha Sacuudiga. Qaar ka tirsan Israa'iiliyiinta ayaa sidoo kale dhaleeceeyay, iyaga oo sheegay inay ixtiraam darro ku tahay caadooyinka maxalliga ah. Warbixinta ayuu Tamary ku sheegay in ay riyadiisu ahayd in uu soo booqdo Makka, isla markaana qofka aqbalay inuu kaxeeyo aanu ogeyn inuu yahay saxafi Israa'iili ah. Sidoo kale booliska ka howlgala gobolka ay ku taalla magaalada barakeysan ee Makka ee dalka Sacuudiga ayaa waaxda dacwad oogista u gudbiyay muwaadin lagu eedeeyay inuu ku kacay fal hadalhayn ka dhex dhaliyay muslimiinta, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Sacuudiga SPA. Ninkan oo xabsiga la dhigay ayaa loo haystaa inuu si sharci darro ah u caawiyay wariye aan muslim ahayn oo uu u fududeeyay inuu si qarsoodi ah ku galo magaalada barakeysan ee Makka oo ay booqanayeen muslimiin ka kala timid caalamka. Dambiga lagu soo oogay ayaa inuu ninka Israa'iiliga oo haysta dhalashada Mareykanka mariyo waddo si gaar ah loogu talagalay inay isticmaalaan dadka muslimiinta ah oo kaliya. Afhayeenka booliska Makka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muwaadinka caawiyay ninka Israa'iiliga uu ku xadgudbay sharciga dadka aan muslimiinta ahayn ka mamnuucaya inay galaan magaalada barakeysan ee Makka. Sidaas awgeed, booliska ayaa markii dambe gacanta ku soo dhigay ninka u dhashay Sacuudiga ee caawiyay ninka aan muslimka ahayn ee gudaha u galay magaalada barakeysan, waxaana laga qaaday tallaabo sharciga waafaqsan. Ninkan Israa'iiliga ayaa sawir isaga soo qaaday isagoo ku sugan buurta Carafo oo ay ku cibaadaystaan xujayda muslimiinta ah ee ka kala yimaada meelo kala duwan oo caalamka ah. Wakaaladda wararka Sacuudiga ee SPA ma aysan magacaabin ninka aan muslimka ahayn ee ku dhex dhootay dadkii galayay Makka, balse waxay ku tilmaamtay inuu yahay muwaadin Mareykan ah.
taliska booliska ayaa sheegay inay waaxda dacwad oogista u gudbiyeen kiiska ninkan Israa'iiliga ah si looga qaado tallaabo ku habboon ee waafaqsan sharciga u yaala waddanka sida ay wakaaladu sheegtay. afhayeenka booliska ayaa sidoo kale sheegay in dhammaan dadka imaanaya Sacuudiga ay waajib ku tahay inay qadariyaan shuruucda loo dejiyay, gaar ahaan kuwa khuseeya labada masjid ee barakeysan. ficil kasta oo lagu jabinayo xeerkaas ayuu ku qeexay dambi aan loo dulqaadan doonin, ganaaxyo kala duwanna ay la socdaan. hase ahaatee warbaahinta qaar ayaa tabisay in sheekadan ay soo baxday kadib markii uu Tamari dib ugu laabtay Israa'iil. waxaa intaa inoogu eg warbixinteennii oo aan idiin soo gudbinaya anigoo ah Cabdiweli Macallim Alto. haddaba haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan like saar, subscribe-na dheh adigoo gambaleelka furanaya si aad u heshid muuqaalada cusub ee aan soo gelina. hana hilmaamin inaad asxaabtaada la wadaagtid adigoo sheer garanaya muuqaalkan. mahadsanid.